السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقال كان مانتا وحن وهذل دونا لغة عربية. luuqadda carabiga waa luuqad ay ku hadlaan ku dhawaad in ka badan 423 milyan oo ruux waxayna leedahay lahjado fara badan waana mid ka mid ah luuqadaha caalamka ugu shacbiyada ballaaran ama ugu shacabka badan sidoo kale luuqadda carabiga waxaa si gaar ah u adeegsada dadka islaamka ama dhammaan ummadaha muslimiinta waayo waxa ku soo degay quraanka kariimka ah waxa kale oo carabiga ku qoran axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale luuqadda carabiga waxay raad weyn ku leedahay luuqado aad u fara badan oo ay kamid tahay luuqadeena Soomaaliga waxa jiro erayo caalami ah oo caalamka isticmaala oo asal ahaan ka soo jeeda luuqadda carabiga sida sonkor oo kale amiir ama albaxr iyo wixii la mid ah sidoo kale way jirtaa kelmado badan oo si caalami ah loo isticmaalo laakiin asal ahaan ka soo jeeda luuqadda carabiga luuqadan ayaa lagaga hadlaa marka laga reebo dhulalka carabta wadamada Chad Eritrea Israa'iil iyo qaramada midoobay luuqadda carabiga ay sida weyn u saameysay waxa kamid ah Turki Faransa waa luuqadda lagaga hadlo Iiraan kurdi oo ah iyadana luuqad ama afka ay ku hadlaan shacabka kurdida ee ku nool wadanka Turkiga Ciraaq iyo Iiraan sidoo kale luuqadaha ay saameysay luuqadda carabiga waxa kamid ah Indonesia iyaduna waa luuqadda rasmiga ee wadanka Indonesia iyo waliba Spanish iyaduna waa af ama luuqad wadamo badan u rasmi ah oo ay u tahay luuqadooda rasmiga ah ayna kamid tahay wadanka Spain ama Isbaaniya halkay ka soo jeedaa ama intay ka soo jeedaa luuqadda carabiga af carabiga waa mid kamid ah bahda luuqadaha Semitiga ama Samaawiga luuqadahan oo u kala baxa ama ku kala fidsan Afrika iyo meelaha laga qoro xuruufta carabiga waxa kamid ah Sacuudi Carabiya Algeria Masar Ciraaq Urdun Liibiya Morocco ama Maghrib saa u taqaanid Soomaaliya Koonfur Suudaan ta naftirkeeda Suuriya Tunisia Imaaraadka Carabta Yemen Djibouti Lubnaan Qatar Bahrain Kuwait Oman Mauritania Jazrul Qamar Comoros Chad Israa'iil iyo Falastiin dhammaan wadamadan iyo magaalooyinka aan soo sheegnay waxaa lagu qoraa xuruufta af carabiga waxaana meeshan inoogu cad sida ay ugu fidsan tahay luuqadda carabiga caalamka qiimana ay ugu leedahay caalamul islaami iyo dhammaan caalamka oo dhanba intaan ayaan ka soo qaadanay macluumaadka luuqadan si aanan muuqaalka noogu dheeraanin ugu dambeyn ka hadlida luuqadan ama mowduucan waxa laga yaabaa inay ugu kaliftay su'aal gabar ay weydiisay ka hor sidoo kale dad badanna laga yaabaa inay u haystaan ama ay u maleynayaan luuqadda carabiga inay tahay luuqad kale aan ahayn luuqadeena xitaa laga yaabee adiga inaad ka mid tahay laakiin ogow qof waliba oo muslim ah luuqadiisa rasmiga inay tahay luuqadda carabiga dhammaanteena luuqadeena rasmiga waa carabi waayo waxaan nahay muslimiin haddii aad islahayd luuqadda carabiga luuqadaada ma ahan hadda ogow luuqadaada rasmiga waa luuqadda carabiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh